اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. buugga ugu horreeya aan ku bilaabi doono barnaamijyadeena wuxuu noqon doonaa buuggan oo ciwaankiisu yahay shan waxyaalood ay dadku markay dhimanayaan ka qoomamayaan ay ka shalaayaan markay dhimanayaan dadku. buuggan waxaa qoray gabar Australian ah oo la yiraahdo Bronnie Ware ayaa magaceeda la yiraahdaa. bal iminka adiga isweydiiyo talow shanta waxyaalood oo dadku markay dhimanayaan ay ka shalayaan talow maxay yihiin bal isweydii. talow maxay kula tahay ma inuu qofku lacag u yeelan kari waayaba? talow maxay kula tahay ma inuu qofku caruur badan u doonayay inuu si fiican u barbaariyo inuu barbaarinba? talow maxay kula tahay ma qofku yani khasaare u galay oo lacag khasaare miya qofku? talow maxay kula tahay maxaasas badan buu guursan islaa u guursanba? maxay kula talow ma qof dulmi u geystay buu dulmiyo iska celin kari waayaba? bal isweydii. waxyaalaha aan soo sheegno oo dhan dhammaantoodba maaha. gabadhan buuggan qortay Bronnie Ware saas hore u sheegnay waa gabar Australian ah, waa gabar kalkaalisa ah, waxay ka shaqeysaa dhakhtarka, weliba waxay ka shaqeysaa qaybta dadka noloshooda dhaqaatiirtu ay ka qusteen loogu talagalay in dhawaan loo sheegna dhawaan dhimanayaan ama xaalad adag oo caafimaad ay qabaan loo sheegayna inay dhawaan dhiman doonaan aan rajo laga lahayn ayay ka shaqeyn jirtay. in badan oo dheer muddo badan oo ka shaqeynaysay ayaa mar walba waxay dhegeysan jirtay dad fara badan oo sii dhimanaya, ka shalaynaya, ka qoomameynaya waxyaalo fara badan. maalintii dambe su-aal bay isweydiiso waxay tahay talow su-aal bay weydiisay dadka dhammaan dadka dhimanaya ama dadka sii dhimanaya su-aal bay weydiiso waxay tidhaahdaan iminka maadaama aad dhiman rabto ama aad dhimanayso maxaad ka shalaynaysaa, maxaad ka qoomameynaysaa noloshada inta aada nooleed? daatana way waxyaalo fara badan bay urusay, 5 waxyaalood bay isugu keentay magaransadee. 5 waxyaalood ay ka qoomameeyaan dadku waxay tahay lambarka koowaad waxaa ugu jira waxa weeyaan qofku wuxuu leeyahay waxaan jeclaan lahaa inaan ku noolaado nolosha aan aniga doonayay oo aan ahayn tan dadka kale iga doonayaan ama iga filayaan. taasina macnaheedu waxa weeyaan dadku inta badan waxay ku mashquulsan yihiin walwal iyo walbahaar ay ka qabaan dadka kale. qofku waxa laga yaabaa waxyaalo fara badan uu samaysan jiray inuusan samaysan, waxyaalo fara badan muulal badan waxa laga yaabaa target fara badan buu lahaa qofku inuusan samaysan sababta oo ah dadka kaleeto awgood. waxa laga yaabaa waxyaalo fara badan uuna iibsan lahayn inuu iibsaday sababta awgeed dadka kaleeto. waxa laga yaabaa qaladaad fara badan uu sameeyey dadka kaleeto isagoo raaligelinaya dadka kaleeto. sidaa daraaddeed waxaa muhiima islaamtu buu ka sheekeynaysa leedahay waxaa muhiima qof walba sidii uu doonayo inuu u noolaado oo aanan ahayn sida asaga ama dadku kale ay ka filayeen. taasina oo ah arrin muhiim ah oo waxyaalo dad fara badan ku dhacda. sidaan ognahay dad fara badan ba waxay iibsanayaan markay wax iibsanayaan waxay iibsadaan dadka kaleeta awgood. arrinkan waa arrinka ugu badan ay dadku ka qoomameeyaan sababtoo dadku waxay doonayaan inaad samayso waxa ayga doonayaan. dadku waxay doonayaan inuu ekaato sidai u egyihiin. dadku waxay doonayaan inaad aaminto waxyaale ay aaminsan yihiin. dadku waxay doonayaan sidai u labistaan u labisato. dadku waxay doonayaan waxyaalaha ayaga sameeyaan la samayso. dadku dhammaantood waxay doonayaan wax ayaga sameeyaan ama dadka inta badan sameeyaan samayso. haddii aad samey weydana dagaal baa lagugu soo qaaday. sidaa awgeed dad fara badan way ka baqdeen in dagaalka iyo dhaleecaynta iyo kritika badan loo soo jeedinayo awgeed ay isaga dhaafeen bay ka tanaasuleen ay sameeyeen dad kaleeto waxay ka filayeen. lambarka labaad waxa weeyaan oo ah yani waxaan jeclaan lahaa inaan muujiyo dareenka waxa aan dareemayo, inaan u sheego sida aan wax doonayay la tahay. sababtoo ah dadku way ka baqanayaan
dadku haddaad ku hadasho waxyaale inaan horu fulaynin way kula dagaalamayaan. dadku haddaadan oran waxyaale yidhaahdaan oo dad oran weydo waa lagula dagaalamayaa. haddaad waxyaalaha intuba dadka badan aaminsan yihiin aad aamini weydo waa lagula dagaalamayaa. sidaan ognahay maanta taariikhdu waxaan ognahayba dad fara badan in noloshooda dee toogasho iyo dil iyo xabsiyo lagu xukumay. sidaa ogsoonahay ninka la yidhaahdo Galileo Galilei oo ah aragtida berigi hore waxaa jiri jirtay aragti ah dhulku waa centerka dabaad cadceeduna uu ku wareegtaa. waa aragtida intaba dadka badan aaminsanaayeen. laakiin gabadh Galileo wuxuu keenay aragti ka duwan oo ah cadceedu waa centerka dhulkuna wuu ku wareegaa magaranaysa. daatana wuxuu ka hor yimid dadka kaleeto waxyaale aaminsanaayeen. yani waxaa ka hor yimid wadaadadii kiristanka iyo kiniisadii iyo dhammaan dadkii baa ka hor yimid. daatana waxaa lagu xukumay xabsi. waxaan ognahay Nelson Mandela keliya wuxuu yidhi muujiyey sheega sidaa la ahayd. wuxuu yidhi dadka caddaankii madowga waa isku mid. 27 sanadood baa lagu xukumay xabsiga. filosoofkii weynaa ee Socrates sidoo kale waxaa lagu xukumay dil toogasho ah. isagoo leh filosoofkii weynaa Socrates oo ah filosofiyadda Giriiga ayaa wuxuu yidhi hal ilaah unbaa jira. daatana dagaal baa lagu soo qaaday, xabsi baa lagu xukumay. isagoo xabsigi ku jira ayaa waxa askari waxa ku yidhi waraad iska baxso iska carar buu ku yidhi. markaasuu yidhi ma baxsanayo, waxaan doonayaa xukunkan qaldan leegu xukumo inaan ixtiraamo. markaas buu wuxuu yidhi horta wax laga baqanayo maxay soo dhimasho ma aanu dhimasho kama baqanayo yidhi magaras. sidaa ogsoonna muslimiin dad fara badan oo muslimiina weliba culimadii ugu waaweyneed ayaa dhammaantood waxa lagu xukumay xabsiyo iyo jirdil iyo dhib fara badan loo geystay. ayagoo isla markaa ka hor yimid waxyaalaha marka dadka markaa joogay ay aaminsanaayeen ay rumaysnaayeen yani bayska yani ah center yani waxa caadi dadka fara badan aaminsan ka hor yimid. waxaan ognahay alimaam Axmed bin Xambal in xabsi lagu xukumay. waxaan ognahay Ibn Taymiya, waxaan ognahay Sayyid Qutb, waxaan ognahay culimo fara badan taariikhda. waxaan ognahay markii taa laga yimaado Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam markii waxay lagu soo dejiyay inay dhammaan ehelkiisa ama Quraysh oo timid ku yiraahdeen waa Maxamedow waxaan iyo iska daayo wax allaale waxaan jecesha ku siinayna inta xasuus badan ku goorinayna madax baanu ka dhigayna dhaqaalanu ka dhigin. way wixii doonayaan inuu sameeyo waxyaale ayaga aaminsan yihiin wuxuu ka hor yimid dhammaan waxyaale aaminsanaayeen ayuu ka hor yimid. sidaa daraaddeed markii dadku dad ka hor timaado waxyaale ayaga aaminsan yihiin way kula dagaalamayaan. sidaa daraaddeed Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam isagoo arrinka ina baraya ayaa wuxuu yidhi xadiiskii Ibn Cabbaas markaas wuxuu kuntu khalfa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam nabiga maalin baa gadaashiisa anigoo maraya markaasuu ila hadlo wuxuu ugu yidhi yaa ghulaam innii ucallimuka kalimaatin ixfad illaha yaxfadak. xadiiska uu sii soconayay wuxuu yidhi waclam ogaa buu yidhi yani ummadda oo dhan hadday kulanto calaa an yanfacuuka bishayin la yanfacuuka bishayin ilaa qad kataba lahu lak. hadday ummadda dhan ay kulanto ee isku daydo inay wax wanaaga ku samayso kuma samayn kareen ilaahay wuxuu kuu qoray. ummadda oo dhan hadday isku timaado ee isku daya inay waxyeele ku geystaan dhibaato ku geystaan kuma samayn kareen ilaa ilaahay wuxuu kuu qoray. lambarka saddexaad ay dadku ka shaqeeyaan waxa weeyaan waxaan jeclaan lahaa inaanan shaqo fara badan shaqaynin. waxaan jeclaan lahaa in caruurtayda iyo xaaskayga iyo familkayga iyo waalidkayga inaan waqti la qaato. waxaan jeclaan lahaa inaan dadka caawiyo. weliba arrinkan waxaa u badan ragga oo in badan arrinka ka qomemeynayay. weliba waxay la tahay yani inaynaan familkooda reerkooda caruurtooda inayna la qaadan waqti fara badan ay mudnaayeen inay la qaataan. labada dambe ay ka shaqeeyaan waxay idin deenayaan idinku iyo inaad akhrisaan buugga. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.